booliiska magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa ku baxay dhacdo argagax iyo fajicisa ku abuurtay dadka ku nool xaafadda Fyllingsdalen ee magaalada Bergen waxaana lagu soo waramayaa in booliisku oo ku hubeysan hubkooda kiisa ugu culus oo tiro aad u badan ah ay dhacdadan ka jawaabeen kadib markii lagu soo wargeliyay in mid ka mid ah guryaha ku yaala xaafadda Fyllingsdalen ee magaalada Bergen ay ka dhacaysa rasaas iyo jug culus waxaana lagu soo waramayaa in booliiska markii ay dhagahooda soo gaareen in dhawaaqa rasaas iyo xabado laga maqlayo mid ka mid ah guryaha ku yaala Fyllingsdalen ay si degdeg ah u soo gurmadeen hubkoodana u soo qaateen dhankaas waxa uuna sheegay taliyaha howlgallada booliiska magaalada Bergen Dan Erik Johansson in ay soo gaareen weliba si dhaqso leh gurigan loogu sheegay in laga maqlay rasaasta waxa uuna sheegay markii ay soo gaareen ciwaanka in booliiska oo aad u hubeysnaa ay markiiba ka bilaabeen howlgallo aad u culus oo ay gurigani ku galeen wuxuuna sheegay markii ay gudaha u soo galeen in ay ogaadeen oo ay yaqiinsadeen warbixinta loo soo gudbiyay oo ahayd in ay rasaas ka dhacaysay gurigan ku yaalo Fyllingsdalen aysan ahayn mid sax ah waxa ayna yaqiinsadeen booliisku in dhacdada loo soo gudbiyay ee rasaasta ah aysan waxba ka jirin wuxuuna sheegay in dhawaqa ka dhacay qaylada buuqa iyo jugta culus ee ka dhacaysay gurigan dhexdiisa ay dadka qaar moodeen rasaas iyo qaraxyo in ay ka dhacayaan yeeshee uu ahaa buuq iyo xasarad ka taagneed gurigan ku yaala xaafadda Fyllingsdalen ee magaalada Bergen wuxuuna sheegay in rasaas iyo qarax midna uusan ahayn yeeshee buuqa iyo sawaxanka gurigan ka baxaya uu ahaa xaalad aan caadi ahayn wuxuuna sheegay in hadda booliisku ay baaritaano iyo sidoo kale dabagal ku hayaan waxa dhacay ee ay dadku moodeen rasaas iyo qarax iyo sida ay u dhaceen iyo mas'uuliyadda cidda iska lahayd halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine